بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. حلقة waxaan ku galaynaa caqiidada ahlusunna waljamaaca. ahlusunna waljamaaca waxaa loo yaqaanaa laba tilmaamood dadka leh muslimiintii jamaacada laasimtay oo aan ka bixin oo firqadii daalada ahayd aan ahayn. firqada daalada ah waa khawaarij iyo shiico. labadaas waa laba firqo oo nabigana sallallahu alayhi wasallam nooga digay khatartooda oo daal ah. siiba khawaarijtoo nooga digay shiicaduna de waa soo baxday iyaduna oo niman fidnaysan oo aad u dhib badan oo asxaabta nabiga gaadhaysay intooda badan in yaroo ahlu beytkaana yani maaragtay yani sheegtay iddicaa inay jecel yihiin laakiin been ka sheegay aysan jeclayn. khawaarijtuna waa kuwii nabiga nooga digo oo sharu lkhalqi ahayd oo khalqiga uga sharta badnaa kuwa dhiigga muslimiinta banaysta inta gaalaysiiya oo dhiiggooda daadinayo. marka intaas ahayn waa ahlu sunna waljamaaca. macnaha waxaa soo gelaya dhammaan dadkii ahlu sunnada ahaa khulafaa urashidiin hoos imaanayay ka amar qaadanayay dowladihii islaamka hoos noolaa culamaa ulislaam hoos imaanayay almadaahib alarbaca ku abtirsanayay iyo keyrkood oo ahlulqiblaha ahaay oo dhan waa soo gelayaan. culammada waxay yidhaaheen firaqdii dambe oo ama dadka dambe oo muctasiladii iyo nimanka la yidhaahdo ashaaciradii iyo maaturidiyadii iyo muctasilada waa laga saaraa maadaama usuul aan sheegi doona isku khilaafsannahay. laakiin guud ahaan ashaacirada iyo maaturidiyadu inta badan sunnada waxay ku raacsan yihin ahlu sunnay ku raacsan yihiin. xoogo masaa'il maaragtay siiba maaturidiyada ayaa aada usii fog oo arrimo badan muctasilada u dhow. ashaaciradu waa iska ron yihiin. waxa kaliya oo ay akhdaa ku galeen waxa weeye ta'wiilka ay ayagoo tansiih ula jeeda ay maaragtay ay ta'wiiliyeen sifaadka ilaahay qaybo ka mid a. taasna culummada waa u cudur daaraanoo niman ahlu kalaam iyo niman falaasifo ah aad dagaal ula galay bay ahaayeenoo sunnada difaaca. ashaaciradu culamaa ashaacira waxay ahaa jireen ahlu sunna waljamaaca nimanka u taagan sunnada inay difaacaan oo jamiic alfiraq daalla ka difaaca. sidaa daraaddeed wax badan ayaa iyaga indhaha looga qabsadaa oo xataa nusuusta daahirkeeda ama salafu saalix ay ku khilaafsan yihiin. marka waxaa lagu tiriyaa fi jumlati ahlu sunna waljamaca ay kamid yihiin ayaga laftooda. laakiin waxaa caan ah oo dadkii salafu saalix raacay oo ahlu xadiidka loo yaqiinay oo caqiidadii imaam maalik iyo imaam shaafici iyo imaam axmed iyo imaam abi xaniifa iyo sufyaan athawri iyo sufyaan ibnu cuyayna iyo alxamaadaan xamaad ibnu zayd iyo axmed ibnu salama iyo salafu saalix aimadii waaweynoo la yaqiinay iyo alawsaaci iyo leyth iyo raggii waaweynaayo yani culamaa ulamsaar ahay manhajkoodii iyo caqiidadoodii iyo dhaqankoodii iyo axkaamtii iyo cibaadaadkoodii dadka ku taagan ayaa ahlu sunna waljamaca la yihahdo. wixii ka agna dhow oo soo raacayana jumle ahaan way iska dhex gelayaan. tacriifkooda saas waay. ahlu sunna saasaa loo yidhi sunnadii raacsan yihiin. jamaacana waxaa loo yidhi xukaamta muslimiinta lama dagaalamin intay gees uga baxeen sida ay sameeyeen firaqda daalada ah. taas waa tacriifkooda guud waay. caqiidadooda waa dul maraynaa ilaa 13 maclam 14 maclam aan sheegayna oo macaalimta caqiidadooda ka mid a. waxaa ka mid a inay tahay islaamka inuu agtooda ka yahay diin اlfitra sida uu yahay islaamku. الdiin alislaami waa diin اlfitra. ilaahi subxaanaه watacaala wuxuu yihi fitraة اllahi alatii fadra naas calayha. qofku marka fitra ahaan ayuu ilaahay yaqaanaa u hogaansan yahay jecel yahay. xataa waxay yidhahdeen culammadu haddii inta qol lagu xiro laga tegi lahaa idan waxba loo sheegin wuxuu caqiide ahaan fidradiisa u sheegi lahayd in allah uu abuuray khaaliq ah oo ka sarreeya oo maaragtay abuuray oo wax kastoo nicmo asagu siiyey. laakiin aqoon ayuu markaas ka maqnaan lahayd. aqoonta marka loogu darana yaqiin iyo cilmulyaqiin ayuu markaa gaarayaa. marka diintaas fidradaas walidaalika dadka falaasifada ah markay soo daalaan oo falsafada ay ku daalaan waxay dhihi jireen ha naxnu namuutu calaa diin alcajaa'is. hadda ayaan ku dhimanaynaa dadka habraha duqoobay oo iska reer baadiyaha oon diin la soo barin waxay aaminsan yihiin oo ah caqiidada fidrada ah oo ilaahay waxdaaniyadiisa iyo jacaylka nabiga sal allahu alayhi wasalam iyo ilaahay rumayntiisa weynayntiisa iyo markay u baahdaan inay gacmo u dooganayaan oo xataa ay og yihiin inuu alla sarreeyo subxaana watacaala fidradooda u sheegaysa ilaa gayri dalika. marka islaamku waa diin alfitra. labo waxaa lagu yaqaan ahlu sunna waljamaaca inay ilaahay iyo rusushiisa iyo kutubtiisa iyo yowm alaakhira iyo qadarka inay rumaysan yihiin. marka waa arkaanta iimaanka wey lixda ahayd aliimaanu billahi وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره إني سدوا رميسيهين. طبعا إيمان كاسو أفكري لما ربوا وإنه نقضى سلوك
manhaja inuu noqdo مثلا aliimaanu billahi maxaa ka dhalanaya waxaa ka dhalanaya wax alla wixii alle ka soo haray oo macbuud sheeganaya in la caabudo sheeganaya cibaadadooda inay baadil tahay inaad rumaysid laakiin haddaad aaminsan tahay inay nasaaran ay saxan tahay muslimiintuna ay saxan yihiin yuhuudduna ay saxan tahay ilahay ma rumaysnin diintiisna ma rumaysnin aliimaanu billahi waxaa weeye inaad ilaah keligiis waxdanadiisa aad qalabsan tahay ilaah kalena aadan ogoleyn wax kastoo la caabudayo asaga kasoo harna inay baadil yihiin caqiidaysan tahay aliimaanu billahi wamalaa'ikatihi malaa'igtu saasoo kale weye waa malaa'igt waa ajsaam nuraaniya oo annagu aan isha ku haynin oo laa yacsuuna ma amarahum ilahay waxuu farna aan caasinayn wayafcaluuna maa yu'maruun wixii la farna la imaanaya oo maarata tasbiixsanaya oo ilaahay fidro ku abuura gaar ah sidii taa in loo rumeeyo waay rusushiisa waa saasoo kale kutubtiisa kitaabka qur'aanka ayaad tafsiil u rumaynaysaa oo lagaa rabaa oo lagula xisaabtama yowm alqiyaama laakiin kutubta kaleeto oo towreed iyo injiil iyo zabuur jumlatan rumaynaysaa kaliya laakiin lagama rabo waxaa ku dhex jira inaad ku camal fashid leanna wixii ku dhex jiro khayr ahay qur-aankana loo dhex dhigay marka laakiin qur-aanka aayad kastoo kamid a akhira wayna la weydiinaya waxaa loo soo dejiya inaan ku dhaqanno wey marka waa inuu manhaj suluug oo noo noqda macnihiisa aan fahmno ku camal falno jeclaano la noolaano ilaa aan ka dhimanayno annagoo qalbigeena uu ku jiro dariirinayna ku camal falayna inaan akhritkana la doonaya وكتبه ورسله رسول ساسو كلا تواي جميع رسل أنا رميسد لكن رسولك إمامك كوه دب جليسد والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أنت كلاته وأنا الجملة رميسد إبراهيم يا موسى وعيسى ونوح وهارون وجميع الأنبياء قرآن كإلهي نوش شاقي وإن سيدين للرمايو لا 25 وإن الرمايو كل جود يكو إلهي قرآن وسنة نوش شاقي لكن تربضا أو كراجرة ورسولا قصناهم عليك ورسول لم نقصصهم عليك أيها الله سبحانه وتعالى رسولنا وكو شاقني رسولنا كو مش شاقن مركا كوان لو شاقن يكوز لو شاقن با سيدي أي قبت آية سورة فادر وسورة الغافر واضح رميسنا كل واضح رميسنا أنه تاسنا ورسوشي وباليوم الآخر وحواي إن لو ديار قروبوي يوم الآخران رمينا يا منا كعمل فلا دينت إلهي واسكت مشلينا يانا من الاسكي يلاي ولذلك القرآن كحضرك يستمر كاستبع إن كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر هدي قفك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قفك إلهي رميس معناتها آخر ده فليكن ضيفه مرتقي هاي كرامه فليقول خيرا أو ليصمت أما خير هي هم يسكع عامسه من كان يؤمن بالله واليوم إلهي رمينتيس معناتها آخر وحال يسوق حرايا القرآن كان آدي يقبض هاي إن كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إلهي لا يمر لماذا؟ لأنه قفك يوم الآخر رميسنه وقف إلهي بقايا إلهي بكو حرايا إنه لمن يؤجيه قبرك بوجه قيامة يا ما يسوق وعوكم عن فلا قولك الله سبحانه وتعالى لا يؤيري يا الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله في ربجر الهي جمله صح الحريق لبت اتقوا الله يا الذين امنوا اتقوا الله الهي كبغى ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله هذا نيري ان الله خبير ما تعملون مركب حواي وان مركب مر الب ان دهاغا اي ايشها اخرات كويسد واي لانه غرغا اخر دبتا غرغا اخر وي وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان اللي هي الحياة الحقيقية ما دارت آخر ومدة نلاشى نبتها على الكاسواي ماشان الله متعلو ماشان شاكات هلا ودار امتحان وأن أرض الجلاس فردية ورغد لو تاج امتحان والله رأى إنه يعني أفرت دقيقة قدهت أما 8 دقيقة مرة 2 دقيقة إنه ورغد أنت حقوق الأصول دي بواي ماشان أكبحه أنت سواي الدنيا لما أنت سواي ما أهن دار القرار ودار المارتي مرور مركا دارت نبتها قبرك بلا بنيسا halkaasaa laga yaabaa inaad milyan sano jiifto ka badan iyo 2 milyan 8 inta ilaahay u doono ilaa qiyaama ay ka dhacayso adiga ma ogtay noqonayso ma 10 milyan oo sano ma 20 milyan oo sano ma 50 milyan oo sano ma 1 milyan oo sano ma ka yara allahu aclam كذب هذا آخر ولد اللي قدم لنا كذا ميس إما عذاب والعياذ بالله وإما جنة النعيم مركا إخوتي مركا واحد الله رحمه إنه الشقة تاسواي ليلا ونهارا والقرآن كذا أخرسيد بيرو البعض لو جر ختمت أما قيران هالمر إن شنت صلاة دكتيد صلاة الليل دكتيد وحصل أن دارت آخرة تعبويسا حسنات كش ونيسا بنق آخره تاسوا لك مرمان واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وبالدينتي ونبا قدرك إلهي خير كيس شرتي سمعنا هذا وحلقة وضع من أترميزنت إلهي سبحانه وتعالى إنه هو المتصرف في الكون كونك الله معموله وحكست وناق أسيك أقيمدين فبما رحمة من الله وما بكم من نعمة فمن الله واحد يستين النعمة إلهي حكيس أقيمدين مالك لكم إيمان ثم إذا مسكم الضر فإليه تجرون هذه اللي بدي تابتنا أسأل عريسين لب كان أسأل رفع كره أسألون كيما هذا أصلهان أدون كيس لقوا امتحانا يا ونملوكم بالشر والخير فتنة وإلهي وعن إنكم امتحاننا شر يا خير سأنا دين جربنا مركا شرط وحلا قوضا مصائب كقول عيسى وحنوصنا عيسى وجب عيسى ودعوة عيسى وفقرنا عيسى وجرنا عيسى وامتحان
dhinaca kale xoolo badan helaysaa, caafimaadaad helaysaa, awlaadaad helaysaa, janno yani waxaad helaysaa maxaan ku ihahdaa mansab, waxaad helaysaa maal, awlaad, zawjo fiican, waa nicmooyin iyo kuwo kaloo fara badan. marka labada waa fitnatan, waa jarribaad, oo macnaheedu ay tahay musiibada markay nagu dhacdana waa inaan ilahay nagu xirtaa, oo in ilahay usoo laabanaa, wabilqadri khayrihi wa sharihi, oo ilaahay aan barinaa, uma idaa masakum waidaa masakum failay taj'aluun. يعني آية واحد وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون وإن إلهي أعررتد أما يجيب المضر إذا دعاه وكي متك أجيب متك لباتي سنة ويرته والله سبحانه وتعالى هدي مرك قدر كاس أنا ساس إلهي نوحر وخسرنا ويمعنى هذا نعمتنا وإلى إلهي نوحرته الشكر قدر كنا مصيبة دوي أنا وحوي الصبر إيه الدعاء أيا لقد أحلا تسمع لقى مرمان قدر كسد حاضر حوي وهذا مهم كاسونا السماد إلهي هي صفات كإلهي إن رمينه oo aan sifaadka ilaahay sida yihiin iyo asmaada ilaahay rumayno. ilaahay asaga iska warrama, nabigiisa ka warrama sallallahu alayhi wasallam, lama bedeli karo, lagaa yeeli maa inaad bedeshid. yadullaahi hadduu yidhi nicmatullaahi ba uma bedeli kartid, ilaahay maan nicmadiisa dhihi karin, waa sheegi kariyaa, nabiga maan sheegi karin sallallahu alayhi wasallam, marka lagaa dooni maayo. mar ay yaddu ay nicmo noqota waa jirtaa, laakiin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu noo sheegay inuu leeyahay yadullaahi, yadullah. marka yadullaahi bal yadaahu mabsuutataani uu leeyahay, labadiisa gacmood waa fidsan yihiin, waa fidsan yihiin. marka inay nicmo ay ku fidsan yihiin waa la ogyahay, laakiin gacantii baba sheegtee adiga ma inkari kartid. marka allah subxaana wa tacala wuxuu sheeganayaa inuu carshigii ou istawa cala alcarshi, waa inaad tiraahdo sida ay tahay rumaysid waayo, istawa cala alcarshi, carshiga ilaahi subxana wa tacaala ayuu kor ka ahaaday, ama waa ku ekaaday, ama waa korow ka ahaaday, laakiin mar ma laga yidhi inta istawlaa calayhi, waa uu qabtay, waa uu qabtay, gacantuu ku dhigay. ewel mi uusan ku jirin yani daa'iradiisa, ewel muusan gacanta ku hayn, ewel weligiis asaa gacanta ku hayay. marka ta'wiilka asalka lafdiga macnihiisa asalka luqa ahaan iyo macnahan ka saaraya ma banaana. marka waxaa la rabaa in asmaada ilahay iyo sifaadka ilahay siday yihiin loo rumeeyo. muruuraha kamaa jaat, maruuha kamaa jaat, amaruuha kamaa jaat, sidii ta mara ma awoodi kartid adiga inaad bedeshid, laakiin waxaa ku banaan inaad tirahdid ilaahay isaga ayaa garanaya istiwahaas u qalma, mid u qalma ayuu istawooda. istiwaaun waxay dhihi jireen ahlusunna waljamaca, istawa allahu cala alcarshi istiwaan yaliiqu bihi, ilahay wuxuu carshigaas oo kor noqda ama uu ku ekaaday istiwa isaga u cuntama. markaas adiga ta'wiil ma gelin, mana ta'wiilin, kayfiyadiina ma gelin. niman mujasime la yihahda ayaa ka istiwaa'i calaa sariiri, sida sariirteeda aan u ekaaday ku fasireen. waa dembi, waa gaalnimo. ilahay makhluuqiisa laguma shabihi karo, laysa kamidlihi shay wahuwa samiic albasiir, ilahay yiri subxana wa tacaala. walidaalika adiga inaad marka aad makhluuq iyo ilaahay aad isku si u fasirtid waa diin la-aan, waa gaalnimo, waa la iska ilaaliyaa. waxaa kaloon la ogolayn in la awilo sifadii iyadoo laga cararaayo maaragtay laleeyahay tashbiiha imaanaye waa awilaynaa, iyadan lama ogola. tashbiihan shaqa kumid adiga maba keeni karta tashbiih. sifadan say taa u rumay, dul mar, ilaahay subxaana wa tacaala kayfiyada u tala saaro, kana soco. intaasaa la rabaa. lidalika imaam malik markii la weydiye wuxuu yihi alistiwaau macluumun walkayfu majhuulun wasu'aalu canhu bidca waliimaanu bihi waajibun wasu'aalu canhu bidca. saasuu yihi walaa araka ilaa rajulan mubtadacan fakhruj, iga taguu yihi. wuxuu yihi maaragtay istiwuhu waa macluum, waa la yaqaanaa, kayfkiisa iyo noocuu noqonayo kayfkuna waa majhuul, ilahay kaliya garanaya, inuu kama hadli karno. waliimaanu bihi waajib, in la rumeeyo istiwahaasna waa waajib. wasu'aalu canhu bidca, kayfa istawa in la yihahdo wax laga weydiiyana waa bidcaba, anagu ma soo gaarin. yidhi bidca waxa la yidhaha shay aan mathal hore saabiq aan lahayn, waa markaas qofka uu diintii ka daba riixaayo, ma naqaano yidhi. adigana inaad fidnaysantaan u arkaahay, heer ciraaq ul heer fidnay ahaayeen ordaga iga tagu yidhi. ciraaq uu ka yimid, marka ciraaqna jadal iyo muran kaliya laga keenaa, waa meel dhib badan waay, ilaa hadda sideeda waay. waa ta keentay inay shiica iyo balaayo ay ku fido. xijaaz waa soo gelaysa shiicada, lannu muran ma yaalo, diin raaca yaal, diinta lagu raaca, laakiin meesha murna yaal, qofku maantana falsafo iyo balaayo jinisa u raadinayo, godow markan dambe ku dhaca. tilmaanta afaraad oo cinda ahlusunna waljamaca waxaa weeye aliimaan. iimaanka maxay ka rumaysan yihiin? waxay ka rumaysan yihiin aliimaanu qowlun wa camal. qowlun wa camal marka lagu leeyahay, qolaa waxay qabtaa murji'a la yidhaahdo inuu yahay qowl kaliya, camal maba ku jiray leeyihiin. murji'a waxaa loogu magacaabay arja-u alcamala can aliimaan, camalkii bay iimaan ka reebeen, lama ogola. marka ahlusunna waljamaca waxay qabaan aliimaanu qowlun wa camal, waa qowl iyo camal. qofkan camal saalix la imaan, oon salaad dukan, oon zakada dhiibeyn, oon xajkii xoola isagoo haysta aan tegeyn, mumin ma aha, ma dhihi karo iimaan u leeyahay, lannu camalkaa ka maqan. laakiin inaad kuna qowsho waxaa la yihahdaa
النطق باللسان والإيمان بالجنان والعمل بالأركان وحوي إن عرب كان لوجا دواقو قلب كان لوجا هيستو حبنانا لقى شقيسية إيمانك وصلاة لقى كذا وقعنت حواليه لقى ديبو إلى آخره مركا الإيمان قول وعمل وأهل السنة والجماعة قديدة ذوي وإن لبضاس مرجئة اللي يلي ماي هذا مرجئة العصر يا جرتو تدو حاجة لها هي قفك حرواي هدور بهدو كذا هدور بيدو كن لكن ومؤمن إيمانك سوى يستا ومرجئة يغلفتوض هل يسكيل عليه وأهلس أما لها هي دينتم مساجد كيتا الله هذه مساجد لك صباح بعد وعمل يسكبرهم وحصل وإرجاء بل وإلحاد مركا قاركود مركا الإيمان قول وعمل واي يزيد وينقص وأنا زيادة وأنا نسقامة وحكو زيادة بالطاعات والتوبة والاستقامة ونكون نسقامة بالمعاصي والمخالفات إلى آخره ولذلك إلهي سبحانه وتعالى القرآن كنا أول شيء وحويل الله جل جلاله يا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون كوا مؤمنين تسوماهم وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون مركا أيضا صدقتوا وعيرا وريا إيمان وزيادة ساعة أيضا مركا مؤمنين تألوا وحويلي إيمان بأزيادة ساعة وأنا بشعرستان وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون كوا لكن قلبي قوضا مرض ويا لو منافق نما بلا يكبحدو يكفري وحواي قرن كودي قرن كليتو معناه قال نمدودي كسي درغان وي marka ayada ila beenina yani ayad kasta markay beeniyaan kufriga kusii durgaayaan way soma markaas iyo gaala wuxuu kale yiri wayaziidu Allahu alladhina tadaw huda ilaahi mu'miniinta kuwii hanuuna wuxuu u ziyaadiyaa hanuun marka maadaama iimaanku uu ziyaadayo bidaacaat ahlu sunna saasay aaminsan yihiin niman la mu'tazila iyo wadiidan yihiin waxay leeyihiin iimaanku ma nusqaamo oo hal iimaana jira walidaalika iimaankayga ayuu leeyahay iyo iimaanka jibriil iyo maxamed waa isku mid waa khatar hadaad adiga aamintid inaad tira iimaankayga iyo iimaanka nabi maxamed isku mid ah waa manhajka ahlu sunna jamaa qofkaas waa ka baxay waxaan isku mid ahayn iimaanka nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam iyo kan abubakar iyo kan cumar laga yaabaa in abubakar uu iimaan badan yahay ama darajo sareeyo qof walba ilaahay wuxuu ka siiyey iimaanka isagaa og هول أو تفاصيل هذا أنا وأنا وإحنا قلنا كلي أنبياء أنت كلي كلي إمام بدينهن أنبياء إمام بدن شكل لاموي يرزوشه أنت كلي تنقف البحر لا يكسي أساق قرناي مركز تاس إن مارت اعترافه وها الصفة اللي حدثت هاي أما الصفة الشناد بأنها وحواي القرآن الكريم القرآن الكريم كأه أما كتاب الله مركز لقى الله وحويا كتاب كاس منزل كأه بقول أفر تمنك سورة كوكبا ونحن لو سود صلى الله عليه وسلم وحن لو سود بواسطة جبريل عليه السلام جبريل بان لو سود لي تضع إنكرسن جبريل كو إنكرسن يا وإلهي القرآن كان أقول شيء عدو لجبريل وميكائيل وركضكم أجرنا وحوي دتك يعني وإن رمينا إن جبريل لو سود لي ويهي أمين الوحي ونيهي مارتي أحد ملائكة سيد كود أو إلهي كو أمين وحي جيس طيب وحكى له كمذا إن أو يهي كلام الله حقيقة لا مجازا وكلامك إلهي نبتة هاي مجاز معها لأنه قال وحي قبان وكلام الله مجازا أو كلامك إلهي حقيقة هنا وحي ليهن لوح المحفوظ وجراه ما إيمان كاس أما اللي وحي ليه وكلام نفسي لكن كلامك إلهي حقيقة وحواي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا كلام الله حقيقة ما مجاز معه إلهي كلام كيسوي تكلم الله به إلهي بكو هذلي إلهي سبحانه وتعالى كلام كيسوي جبريل أسود ديبي صاحب دي محمد أسوقنا قلبي يسكسر شوي صاحب دي تاسنا وإن حق القرآن كلا قرما يا واي قرآن كاسنا وحوي أنه أفضل الذكر واي وأنا شفاعة آخره ما رتقفك قاكو قالوا بنا حجة يكون غنيا إما حجة لك أو عليك القرآن حجة لك أو عليك مرك إلهي وحكد كوا وحجة أنه غذاء وصدش حجة كنا غنى الله نقدره وحاكم هذا الصفات ك مارتي أهل السنة والجماعة كلام الله مركن كصبح حني صفة التضباد أما اللي حدا عندها الصفات اللي حدا حواي الإيمان بالغيبيات المغيبات وحيابها غيب كأه وإن الرمية إنما حاجرة يعني مارتي عقلانيين لا يرادوا وإنكراية وحكستهم محسوس عين ويسن تعبان كرين غيب كأه وإنكسين أهل السنة والجماعة مركا وكواس وخلاف سيهن وحي رميسين الإيمان بالبعث والحشر والنشور والميزان والجنة والنار وعذاب القبر والشفاعة
وتضاير الصحف صحفتنا ماشاس كل وإن قفك مؤمن كائن رمعيه أهل السنة والجماعة قفك مد كمد البينية دين توكبها وهلس لأن القرآن كان هو شيء السنة النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له كمد رؤية إلهي سبحانه وتعالى آخر إلهي الأركاية قارم وشيء دوناتاس واستفكر وقالوا تاجن واي متسعة واي مركا وحكى استو غيبة شفاعة وإن الرمعيه معتزلة يديدا ولا شفاعة ولا ما بجرام لكن أهل السنة والجماعة في قبان شفاعة إن غيره القرآن كإلهي نوش نبي أحاديث صحيحة نوش الشفاعة الكبرى وحاس كلام مقام محمود نبي محمد صلى الله عليه وسلم إلهي باسي ضد بدن وشفاعة يعني وصالحين تكمل أنبياء كلا صحابة كل قف إلى جرجة أهل إيمانك جرجة إسلجوا يسوع شفاعان شفاعة مركز لبت المامضو إلهي نوش ما لبشر دي لا هاي الشفاعة كنت ماذا أن يأذن الله الشافع قفك شفاعة إن الله يؤد موعد بدون إذن الله أحد الشفاعة كما مجرى ولا يشفعون مش شفاعا إلا لمن ارتضى يعني آية الكرسي كنواتي إلهي ونوقش يقول من بعد مركب إلهي يؤدمك بعدي الله لا إله إلا الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وكاس من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يويه أحد شفاعي كرا إلا إذن كإلهي ما هنا وحكى له كمذا رؤية إلهي سبحانه وتعالى إيه شرط قلبان وحواي إذن والرضا المشفوع عنه كان لو شفاع عن إلهي نور كان نغضوي تاسموا شرط تنسجدات وحواي إلهي رؤية ديسي إلهي أركتي ديسي يوم القيامة حق واي قفك بين يدين توكبحها معتزلة وبين سي وكوكل يتبضن يا عقلانيين لكن النبي قال نوش إن وانا سكنتها بدأ سقالات وحواي إلهي سبحانه وتعالى وحواي المؤمنين وحي كد بدو كذان قف كستوى مؤمن قف كستوى فاجرة وهذه مهمة جدا يعني يصلون وراء كل بر وفاجر ساسي كعبر عن أهل السنة والجماعة علماء صاحب العقيدة الضحاوي غيره علماء رقة قرية عقيدة ساسي رهين معنى هذا حواي قف كستا أو إمام كون نغضة ما الدوري كرتيت هذا بقى أهل القبلية هاي والدكان هاي وكتب الدكان يسا وكتب الدكان يسا هذا عقيدة حتى حكاية خلاف سنة هاي مذهب كو خلاف سنة هاي إيمان كيسو قلبوا هاي ما الدوري كرتيت صح هذه عوردي سيسان أسترين سفيعان أما صلاة وكل هلاية ولا غفرنا يا من القدة بدو كناية لكن هذو صلاة هجاجينها سفيعان وأسترين هاي والقدة بدو كناية وحال الديدة إن لو غفرتوا أخلاق ما هني عقيدة تسأل الديدة تسأل السؤال لأنه مسلمين تفرغ قلنا يسا جماعة دي سلسة عتبة كانت تجيسا لما أقلا وحكى لهم لا أقلين الخروج على الأئمة الظلمة حكام الظالمين إن لو صبحوا إلى الأرض قال لمنا أهل السنة وحرمين ما أقلا أهل السنة والجماعة خوارج أسكال شغلاس يشيعوا لبدو بالليين اللي عقيدة يقول قال لما ينقار لكن مسلمين تعقيدة ده مسلمين يقول صدوا من يقول قال لما نحن ده مسلمين تحدوا كم قال لما مركا حكامة الظالمين أحكام تكتر على وحواي إلا بدله إذا اللي كنت هذا ندي صورته بس ولا بدل كرا سيد هذا النظام إذا عصبة دستوري إن لو صمر الدور شوين هو كلا لو رعبه والدور شوين كلا تنك ظالم كلا يرى كمان نبى عسكري ابنه وأن صالحة وكفي عندي له رأي الرسول صار إيه وإحساس أنت لقى الشوري هذه مرجعية أجرته أو أنت لقى الشوري اللي هي هل عزله هذه العزل كرو نظام بقرطوي هذا جرو وبقرطوي هذا مرجعية وأمير على مساري لا ريدي كرو إن لا ريدي هذه مثل خير بدن أجره وبناتها بل هو واجب لكن حاكم كظالم كاي هذه دجال كلو قاضي ليك بدن وكده هذا نايو ودي كده هذا نايو لسكو بابا ما بنان لو بحو أهل السنة الجماعة يقول كعرّي في ذندا ليك المسلمين تسكو هذا نيسا أي حرمان حرام واحد ما بنانه وحكى له كم إذا إن الرماية فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجعل كذا أهل السنة والجماعة وحياد جعلي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضل قدر وقرسيه وحان فضل بن أبو بكر عمر أكو حاجة عثمان أكو حاجة علي أكو حاجة سيدي أكل الدنبايين حق درجة قبشة إمارة أي أكل فضل بديين وأنا إن الرماية إلهي نواجع جعل هذا من لك الأفرق كرو وحكى له توكم إذا إن يجعليهين أوليد إلهي أوليد وحال لقوا ضدك صالحين تا أهل إيمانك واسجعليهين المؤمنين تو عداوات إحدى ما يالو هري محاضرة رمق هذا لنا إن كوح جماعة جماعة طريقة أن يصلح كرين ومسلمين إيمانك حرق إيمانك سكود حرايو قال تعالى الله وحول ليه إنما المؤمنون إخوة وحكوا ليه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض في سر التوبة مركب ما بنانا إن حواجز كلا لك أحسن ما واسحريريان وأن استعليهن وقدام بينتي أهل السنة والجماعة وحيث رميسيهم كراماتك أولياء كراماتك أولياء وهذا الصالحين وإلهي وكرامات سيئ كرامات كانوا حقوق فضل بدن استقامة دين تلو توسو خوفك أهل إيمان وياهي
oo dacwadii oo qabuul oo ilaahay uu siiyo oo dadka ay raacaan taasaa ugu fadli badan waxyaabaha khawaariqul caadada ah oo sida caadada waxa sida normalka aan ahayn sida qofka in biyaha uu isaga dhex socdo iyo in maaragtay xayawaanka uu la hadlo iyo inuu waxyaabo aan caadi ahayn uu sameeyo mararka qaarkood muminiinta waa la siiyaa haddii ahlu iimaan uu yahay qofku istiqaamo leeyahay karaamatul awliyaa ayay noqonaysaa waana lagu qadirina waa lagu ixtiraamaya hadduu ahlu iimaan uusan ahayn uu faajir yahay salaada ku dheelaayo oo naagaha ajnabiga iska taataabanayo oo iska dhex boodaya wax kasoo xumaana waxyaaba saasna uu sameeyana waxaa loo arkaa inay tahay camal shaydaan dadka lagu luminayo lagu baadiyeynayo kahanada iyo dadka shayaadiinta ayaana waxyaabahaas lagu imtixaanaa waana istidraajaadka shaydaanka ayaa maaragtay ayaa yatalabasu bihim markaasaa waxyaaba shaydaanka loo sakhiray ayaa isagana loo sakhiraya si uu dadka u baadiyeeyo marka muslimiintu waa iska ilaaliyaan kaasoo kaleeto waana khatar aaduna khatar u yahay awliyada saalixiinta oo karaamada loo ixtiraafayo ma la baryi karaa ma loo yeeranayaa maya weliga waa loo duceeyaa waa la jeclaadaa laakiin looma yeerto isagaa loo duceeyaaba sheekh hebelow sheekh cabdiqaadirow sheekh fulaan waxay ama odaan kumayngelaya ama dhibkaas iga qabo ama dheeftaas sii waa shirki diin la-aan wey lama ogola laakiin in loo duceeyo allah yarxam sheekh cabdiqaadir allahu rfac darajaatuhu fi ljanna ilahu jannadiisa kor uga qaad ilahu meel qabow geey ilahu camalkii saalixaayo la imaan jiray iyo diinta fidi jiray jannada ugu bedel waa la dhihi karaa waana la jeclaanaya laakiin duca yaa iskale barya yaa iskale allah subxaanahu wa tacaala sal allahu ala sayidina wa nabiyina maxamedin wacala aalihi wa saxbihi ajmaciin